dhalinyarada magaalada Muqdisho xogweyntii aktaradii iyo fanaaniintii ina isku gumaano soo dhaweyn u sameeyeen walaalkeen Saaxiib Roy magaalada kulli cid ka mala waa ciyaar wardiigle waaye Saaxiib Roy haduu ilaahay raali ka noqdo waxaan rajeynayaa inuu magaalada asigana dad badan ku soo dhaweey doono caawa kuma keenan wuxuu daaran yahay ama arkigiisa ah ina soo dhaweyn walaalkeen Saaxiib Roy Saaxiib waxa ku leenahay magaalada Muqdisho caasimadda ummadda Soomaaliyeed kusoo qaacayaan oo balansan caawa baashaalena xalena Saaxiib mar labaad soo dhaweey masjidka السلام عليكم أصحابي سود وهذا ولكن صاحبكين شعيب روي ما أنت إنه قال عصر معنا تعيد مركز سود دقي معلومك بعد واحد على إن أصحاب قالوا يقوا عزومين برامج سود وين أو إيش هي البرامج كاسين وكده دونه إن أباي دحن وحقوه ريدت كبرامج كاسين قابينها إن ولالك أحمد هلجن ولالك عبد ولي ولالد آدي وبديه أصحاب آدي وبديهن مكان قد قاعد يكروان شيء هذا عنده فيديو جو ديرانا سفرك ما أنت أصحاب بدن أقوه هليني لكن ما أنت waxa ii dhow hada garabkayga joogo walaalkay Cabdi Wali oo loo yaqaano Jamaal Shucayb Muqdisho ku soo dhawaaw waxa waaye lafa hore Addis Ababa dadkii hore maartay asalooga tahay Muqdisho ku soo dhawaaw saaxiib maanta waxaan u soconaa Baydhaxan dadka inta badan waa yaqaanaan waa meel jasiiro ka sokayso waa area jasiiro waa meel loo dalxiiso oo qurux badan oo maaragtay jawigeedana kaalis ka ragu yahay oo xeeb ah marka man idinkaga sii hordhici doono waa arki doontaan muuqaalkeeda iyo qaabka ay noqonayso marka mar labaad Shucayb Muqdisho ku soo dhaw saaxiib muddo waxaan maleynayaa 16 sano ku dhawaad aad ka maqan tahay Muqdisho inaan waqtiyo badan kadibna maaragtay aan is aragno safarkaagii Yurub kadib inaan is aragno sharaf ay noo tahay inkastoo Cusmaan Hoose oo ka soo hormaray waxa way soo dhawow barnaamijkeena wuxuu ahaa galabtii inaan bilaawno habeenkiina aan bahaytaanka bacdi xilli gabaabsi oo maqrib ay tahay ayaan waxaan ku aadnay Abaay Dhaxan sida qorsho u ahayba waxa ay ahayd inaan banaanka baraxano galabtii maadaama galabtii aan soo daahnay habeenkii inaan xeebta agteeda aan dab ka shidano Muqdishona markaas waxa ay ahayd cimiladeeda aad u kululeed marka ina ma jawi waxa ku qaadanay ahayd balanta laakiin waxa dhacay in roob oo imaado cirkii dhanba roob oo soo xiro banaankii laga cabsaday maadaama nal uu ka jirin qorshuhun uu ahay in mataqaana dab aan shidano roob iyo dabna waa isdiideen oo ogtihiin marka dadaal fara badan ka bacdi waxa noo suurta gashay in barnaamijkeena uusan baaqanin ee aan gudaha ku qabsano waxaan la siiyay hool aad u weyn oo dadkeena qaadayo inkastoo xogaa cariir nagu dadkuna aad ay u badnaayeen in waxa noo bilowday barnaamijkeeni kulleeta asxaabta soo dhaweynta ay fureen oo meesha waa lagu soo dhaweeyay bismillaahir rahmaanir rahiim waxa caaw sharaf weyn noo ah inaan isku gumaano anagoo dhalinyarada magaalada Muqdisho xogweyntii aktaradii iyo fanaaniintii ina isku gumaano soo dhaweyn u sameeyeen walaalkeen Saaxiib Roy magaalada kulli cid ka mala waa ciyaar wardiigle waaye Saaxiib Roy haduu ilaahay raali ka noqdo waxaan rajeynayaa inuu magaalada asigana dad badan ku soo dhaweey doono caawa kuma keenan wuxuu daaran yahay ama arkigiisa ah ina soo dhaweyn walaalkeen Saaxiib Roy Saaxiib waxa ku leenahay magaalada Muqdisho caasimadda ummadda Soomaaliyeed ku soo dhawow waxaan caawa soo dhaweynaynaa saaxiibkeen Saaxiib Roy fanaan hore fanaaniintii maaragtay lafaha islaa ka mid ahay hadda kama isku dhaafin manka wadaada noqday ka caawa gelinayna qaacayaan oo balansan caawa baashaalena xalena Shucayb mar labaad soo dhawow masjidka استاذك كما مقنع وابابلها حفلتنا لوgu talagalay Saaxiib Roy ورناantii muddo ka maqnaa
bal ciidii aad soo jiidatay oo maxaa yeelay dheh hantiyey macaan waa midaan way laga oranee hantiyey macaan waa midaan way laga oranee علشان waxaan ka daawan jiray social media dad soo dhaweynayo kullidu inaan dadkaas ka mid noqdo anigana reeyay ahayd waxaan dhigi karaa maanta geedo ilmooday maadaama dadkaan tirada badan maanta ay u imaadeen inay waddankay ku soo dhaweeyaan in muddo 16 sano aan ka maqnaa kullidu wax kale oo sheega malaha farxad ay haydo waan ku maasantiin aad leedahay dhammaantiin ka soo qayb gashay aad u maasanyiin boqolkiiba boqol
koleyto waxa ay ahayd barnaamij aad u qurux badan waa markii ugu horeysay abad intaan noolaa soo dhaweyn la ii sameeyo aniga dadka ma ahayn ee laboorada lagu soo dhaweeyo ama meelaha lagu soo dhaweeyo maan ahaan jirin laakiin nasiib wanaag waxaa ku kulma meeshii asxaab reer Addis Ababa isku ahaan jirnay marka nasiib ayaan lahaa in asxaabtaas oo dhan hal meel mataqaana inta la iskugu keeno habeenkaas waqti fiican ku qaadano abaahay dhaxan oo ku caan ah meel jawi lagu qaato markasta Muqdisho tagto hadana muddo tagin ee aad u qurux badan inaad meeshaas booqato tan ku kulmi doono muuqaalka xigo sidaas iyo nabadgelyo